shaqaalaha iyo dhakhaatiirta ka howlgala cusbitaalka guud ee magaalada Burco ayaa mudaharaad ka dhigay gudaha cusbitaalkaasi waxaanay sheegeen inaanay mushahar qaadan muddo 12 bilood ah isla markaana 3 bilood oo kamid ah mushaharka ka maqnaa shaqaalahaasi ay bixisay hay'adda HBA oo kontaraageedu ku ekaa sanadkii aynu ka soo gudubnay lacagtii ay ku lahaayeen shaqaalahaasi hay'adda HBA ee ay bixisay 3 bilood na uu amar ku bixiyay isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer in laga jaro qayb kamid ah lacagtaasi shaqaalaha waxaanay ku tilmaameen lacagta laga jarayo mid sharciga ay ku shaqeeyaan shaqaalahaasi ka soo horjeeda sidoo kale shaqaalaha ka howlgala cusbitaalka guud ee magaalada Burco waxay sharci darro ku tilmaameen xarumo ganacsi oo qaarkood laga hirgeliyay gudaha cusbitaalka guud ee magaalada Burco kuwa kalena dhismahoodu ka socdo gudaha cusbitaalkaasi magacaygu waxa weeyaan Dr. Xasan Jaamac Xasan oo ka shaqeeya cusbitaalka Burco qaybta maternity-ga annagoo ku hadlayna gudidan halkan joogta oo qayb kamid ah shaqaalaha ay tahay 27 qof oo hay'adda HBA ka qaadan jiray mushahar ayaa waxa dhacday in mushaharkii aanu qaadanaynay contract-na laga qaaday 1 year 3 bilood hore March-na la siiyay wixii ka horeeyay 3 bilood ka dambeeyay ee ku ekaa July aan la siinin ay soo dhacday laakiin intii ka dambeysay ilaa maanta aanan wax mushaar ka helin waxa dhacday in hay'adda HBA keentay lacag 3 bilood ah markii hore waxa dhici jirtay in lacagta lagu shubo habshiil oo qofku sidiisa u qaato transparent imika waxa dhacday in la order lagu soo sameeyay hay'adii oo la yiri ku soo shub akoonka cusbitaalka markii lagu soo shubayna cusbitaalku wuxuu keenay inuu dhaho lacag baan ka goosaynaa qof walba 9 bilood bishan koobaad oo ah bisha 10aad noqonaysa sida Dr. Xasan hore uu soo sheegay cabashadeedu waxay ku beeskareysan tahay lacagta 9 bilood ee hay'adda HBA intensive u bixin jirtay waxay daaran tahay cabashadeedu in yaani isuduwihii markii lacagtii ay soo dhacday uu yiraahdo cusbitaalkii baa xidhmaya cusbitaalkii baa caynkana lacagtii deynta ay u lahaydeen cusbitaalka ku deyn baxaya waxaan ku nidhi war lacagtan waa lacag hore loo cunay oo qof walba hore loogu lahaa deyn bay ahayd shaqaaluhu intaaba bila lacag buu ahaa oo adigu lacag maad siineen ma joogno maanta meel la yiraahdo wixii yaraa ay soo dhacayna waa la kala goynaya cusbitaalkan ku kabaya ku hagaajinaya maadaama cusbitaalkii aanu dhaqaale haysan waxaanu taaganahay anagoo aan leenahay war cusbitaalku qof shaqaale ah oo mushahar bishii qaata ma kabi karo cusbitaalka uu shaqeeyna waxaanu leenahay hadii isuduwahan la kala soo dhaxgeli waado wax ka sii xunun baa iman doona magacaygu waa Nimcan Nuur Caraale anigoo ka tirsan qaybta maternity-ga ka cabanayna hay'adii HBA 2016kii kontaraageena la gashay 12 bilood la saxeexo la dhiibay ayaa waxa dhacday anagoo horena meel kasta u soo marnay badhasaab u tagnay isuduwa u tagno ku soo xiiqnay waxa dhacday in 3 bilood la soo daayay 3 biloodna uu isuduwa af waxan ugu yiri kala badh baan jaraya inta kalena qaata ana waxa loo dhan saamilay lahayo dumarka u shaqeynaya umulaya de marka naga ma qabatay haani gumbay ka tolantaay madaxweynaha la hadlaya anu waxaan leeyahay waxa yagi madaxweyne hadana aad raali ka in umadaada ka masuule waxa yagi aadaanu kala xisaabtamayna soo dhaxgal ninka gabadh muushaban ku ayaan ugu dhaxtay markii shanaadaan dhiig u shubo weeyaan madaxweynaha iyo wasiirka waxaan u sheegayaa Soomaaliland wax kaaloolan ka waayay baagi dhiig lagu qaaday ka waayay isbitaalku uu xiriyay maamulkaana xiray cid kale ma xirin waa markii ugu horeysay shaqaalaha cusbitaalka guud ee magaalada Burco ay mudaharaad ka dhigaan cusbitaalkaasi iyagoo ku doodaya in la musuqmaasuqay mushaharkii ay xaq u lahaayeen Ali Daar Maxamed Boos TV Universal Burco.